wardegdega mas'uuliyiin iyo saraakiil ciidan iyo askari hogaaminayaan ayaa markii ugu horeysay maanta waxay ka goosteen garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kuwaas oo u goostay dhinaca Sheekhadan Madoobe hogaamiyaha dhawaan loo doortay Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaan warbixintan kugula wadaagi doonaa mas'uuliyiinta goosatay magacyadooda, halka ay xilalka ka hayeen iyo sababta ka dambeysa in ay ka goostaan garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen hogaamiyaha weli ku adkeysanaya inuu yahay madaxweynaha shaaciga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. soo dhawow daawada muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhiiba haddii aad horey noola joogto ood ku maasan tahay, haddii aad nala joogina nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran. wahagaaga wararka naga soo gaaraya duleedka iyo gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ku waramaya in gudoomiyihii hore ee degmada Awdiile Ibrahim Kalay uu ka goostay garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen isla markaana u goostay dhinaca maamulka Sheekhadan Madoobe oo uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya uu diyaar u yahay inuu markaasi la shaqeeyo. Ibrahim Kalay ayaa ka mid ahaa xubnihii ku soo biiray safka Laftagareen intii uu ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, horeyna uu u ballan qaaday inuu qayb ka noqonayo halganka dib loogu xoreynayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. talaabadan waxay dad badan ku tilmaameen in Aadan Madoobe uu bilaabay kala furfurka ciidanka iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Ibrahim Kalay iyo saraakiisha uu la socday maanta ayaa waxay wateen 3 gaari oo cabdibilaa iyo ciidamo saarnaa kuwaas oo galay gudaha magaalada Baydhabo, halkaana markaasi lagu soo dhaweeyay. waxaa tani ay muujinaysaa in Aadan Madoobe uu bilaabay inuu markan kala furfuro ciidanka Laftagareen daacadda waa saraakiishooda iyo sidoo kale xubnaha ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. haddii Aadan Madoobe uu ku guuleysto in uu markaasi si dhammaystiran u kala furfuro ciidanka daacadda waa garabka Laftagareen ee duleedka Baydhabo ku sugan, waxay ka dhigan tahay in Laftagareen uu lumin doono halganka uu Baydhabo iyo Koonfur Galbeed inuu ku soo ceshto inuu markaasi uu sii socdo. waxaana tan markaasi lagu sheegay inay barbilow u tahay qorshe Aadan Madoobe uu u diyaariyay inuu ku kala furfuro ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen saraakiisha hogaaminaysa xubnaha wasiirada ah ee duleedka Baydhabo ku sugan. dad badan waxay isweydiinayaan kadib Ibrahim Kalay oo maanta Baydhabo dib u laabtay yay yihiin xubnaha suuragalka ah ee ku xigi kara. inta badan waxaa markaasi la saadaalinayaa inay jiri karaan xubno kale oo dib ugu laabta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. maamulka Aadan Madoobena la shaqeeyo waa haddii ay markaasi helaan ballanqaadyadii Ibrahim Kalay lagu qanciyay oo kale. wararku waxay sheegayaan in gudoomiyihii degmada Awdiile ee maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay isaga saraakiisha la socotay ciidanka uu hogaaminayo ayaa waxaa markaasi ay tahay in ballanqaadka loo sameeyay uu yahay in laga dhigayo gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada, maadaama hadda aysan jirin cid si rasmi ah Aadan Madoobe uu ugu magacaabay inay tahay gudoomiyaha degmada Baydhabo. Ibrahim Kalay 3 gaari ee cabdibilaha iyo ciidanka la socday ee Baydhabo ku laabtay ayay dadku waxay tilmaamayaan in ballanqaadkaasi loo sameeyay uu sabab u yahay in uu markaasi dhabarka ka toogto saaxiibkiisii Laftagareen ee maalmo ka hor uu sheegayay in halganka ay isla wadi doonaan magaalada Baydhabo iyo guud ahaanba deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay isla wada xoreyn doonaan. aragtidaada qaybta faalada ku dhiibo, maxay ka dhigan tahay kala furfurka ku bilowday ciidanka Laftagareen? suuragal ma tahay in Aadan Madoobe uu ku guuleysto in ciidamada Laftagareen isaga oo aan dagaal la galin uu ka guuleysto oo uu kala furfuro? qaybta faalada ku dhiibo naguna soo biir.